Ayna Ring waa kan ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee lagu maamulo ku dhawaad wax kasta oo looga baahdo moobilkaada. Ayna waxay leedahay habka ugu fudud ee wicitaan iyadoo farta uu faraantiga ku jiro la saarayo dhagta. Aadna maqlayso qofkii ku soo wacay sidoo kale uu ku maqlayo. Waa faraanti leh Bluetooth iyo screen yar oo aad ku maamulan karto suulkaada. Waxaad ku maamulan waxyaabaha yaryar ee hawl fududaysiga gaadhiga ayaad ku furan. sidoo kale waa mid leh control bandhiga loo yaqaan SOS. Magnetic USB maalin walba iyadoo shay xal loo raadiyo ayaa la soo sameeyay magnetic USB. waa mid leh wax ka badan 5 magnetic oo u sahlaya inuu dhaqso isku laalaamo sidoo kale uu kala baxo, isagoo ku fududeynaya inaad ku mashquusho kala bixinta USB-ga. waana mid ka wanaagsan oo ka cimri dheer normal USB-ga, kaamana qaadanayo space weyn marka aad meel aadayso, waana mid ka dheer kuwa kale. Voxage waa saacadii ugu horeysay ee aan aragno. waa saacad ku shaqaynaysa Bluetooth adigoo ku maamulan kara waxyaabaha yaryar ee aadan ku qabsan karin moobilkaada. waxaad u isticmaali kartaa ku hadalka wicitaanka adigoo furaya saqafka kore ee saacadda. saacaddan waa mid wadata wax ka badan 5 kalor oo aad ku bedelin karto saqafka wicitaanka. sidoo kale waxaad ku maamulan kartaa fartaada iyadoo wadata shaashad. waana saacad qurux badan. Whenever you want to use it. TickTime waa mid sahlaysa ka shaqaynta hawl kasta oo aad u isticmaali kartid inaad waqti ku qabsato, iyo shaqo kasta sida isboortiga, shirarka, dhammaan hawlaha laga rabo saacad inay ku socdaan. way yar tahay waad qaadan kartaa, way fududahay in la isticmaalo, waana magnet aad ku dhigsan karto meel kasta. Airride waa koofiyadda mootada, waa mid leh map system sidoo kale aad ka arkayso muraayadda halka aad socoto, aadna ka arki kartid ruuxii ku soo waca. waa mid yaraynaysa shiralka iyo inaad ku mashquusho maapka iyo wicitaanka. laser baker waa qalab laser ah aadna ku nashqadayn kartid sawir walba adigoo jooga xaafadaada. waa mid ku shaqaynaya hanaanka Bluetooth adigoo ku xiranaya moobilkaada gacanta oo ka dooranaya sawirkaad rabto. laakiin waa inaad u isticmaashaa shayga cad wax madow sida qalin madow, haddii kale wuxuu samaynayaa reflection isagoo gubaya wax walba oo uu qabto. waa mid aad u isticmaali kartid wax kasta oo aanan noolayn, aadna ku sawiran kartid sawir kasta oo moobilkaada ku jiro. sidoo kale waa inaad haysataa application uu leeyahay systemkan. Buckle waa mid fududeynaya inaad suun dheer dhaxda ku xirato. qalabkan ayaa ah mid cabirkaada laga qaadayo kadibna lagu samaynayo. wuxuu kala qaybinayaa shayga labo isagoo soo laabayo qaybta raaga ah. sidoo kale waa qurux, waana mid qarsoon, waana suunkii ugu yaraa ee abid la sameeyo. Biko waa hanaan loogu talagalay bacriminta dhirta. waa mid siinaya dhirta biyo weliba waqtiga ku filan ee saxda ah. waa mid siinaya ilays u dhigma cadceedda. waa mid elektaroonig ah oo aad chargeysan karto. sidoo kale waa mid qurux badan.
Biko waa hanaankii ugu horreeyay ee lagu targalay bacriminta dhirta isagoo ka warhaynaya xilli kasta siinayana wax walba oo ay u baahan yihiin.